daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay marna dacarayaanahay cadow dilaayaa agaanahay dandaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaan marna dacarayaanahay cadow dilaayaa agaanahay dandaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaan deer qaranayaanahay sharci kala dambayniyo dowladniman u taagna dowladniman u taagnahay deer qaranayaanahay sharci kala dambayniyo dowladniman u taagna dowladniman u taagnahay darbi adag ayaanahay gumaysidiid ayaanahay dowladdaanudayno anabsamin howlaha shaqado umegana hirshabelle weya dowladdaanudayno anabsamin howlaha shaqado umegana hirshabelle weya dal jirgeesiyaanahay dugsi lagu hurtaanahay askari daacadaanahay dal jirgeesiyaanahay dugsi lagu hurtaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay daacad muuqataanahay dadka ehelkii baanahay daafaca dalkaanahay marna dacarayaanahay cadow dilaayaa agaanahay dandaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaan marna dacarayaanahay cadow dilaayaa agaanahay dandaansi ma ogoli dib u noqosho ma aqaan deer qaranayaanahay sharci kala dambayniyo dowladniman u taagna dowladniman u taagnahay deer qaranayaanahay sharci kala dambayniyo dowladniman
dowladnimaan u taagnahay dowladnimaan u taagnahay halkan ugu mahadcelinaynaa walaalahayn dowladda Sacuudiga oo deeqdeena soo gaarsiisay oo la yiraahdo Malikul Uliya deeqdeena soo gaarsiisay walaalahayn waa ku mahadsan yihiin ilaahay baa mahad iskale laakiin dadkii deeqdan dadkan u fidiyay ayagana waan u hambalyeeynaa duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey iyo madaxa howlgalka ee hay'adda Saacid Cabdullaahi Maxamed Xareed ayaa iyana mahadcelin iyo bogaadin u jeediyay hay'adda Saacid iyo shacabka reer Jowhar ee sida nabadgelyada ay ku dheehan tahay u qaatay cuntadani daadadkii ka dhacay webiga Shabeelle oo sababay Hirshabeelle waxa mahad weyn iska leeyahay waxa kale oo mahadda iska leh dadkii ka qayb qaatay sida mataqaanaa muassasada isku xirka xiriirka islaamiga waxaan leenahay aad ayaad ugu mahadsantihiin deeqadan faraha badan shalay tool waxa baxay 750 maantana waxa dadka la siiyay 1500 oo qoys qaybinayna cunadii maalintii labaad raashin gargaar ee ka yimid mamlakada Sacuudiga Carabiga xafiiska Boqor Salmaan kaasoo ugu talagalay gobolka Shabeellaha Dhexe labadiisa tuulo ay dhibaatada gaartay raashin gaaray ilaa iyo 5000 oo tan kaasoo macnaheedu ahaa inuu 2000 la geeyo mahadaay 3000 jeer lagu qaybiyo shalay waxaan qaybinay 1750 maanta waxaan qaybinay 1500 taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Korneel Xasan Dhicisow Xasan iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Hirshabeelle Cabdimahad Qoorgaab ayaa iyagana gabagabadii ka hadlay goobtan ay ka socotay qaybinta gargaarka maamulka gobolka waxa kale u mahadcelinaynaa hay'adaha amniga iyagoo ka qayb qaatay annagana waxaan naga rabaa inaan dadka shalana waxaan ku gaarsiinay si nabadgelyo maantana waxay ku gaartay si nabadgelyo ay ku qaadahayaan annagana waxaan naga rabaa dadkaas masaakiinta deeqda la soo gaarsiiyo inay si nabadgelyo iyaguna ay loogu qaybiyo gudyahoodana ay kula tagaan waxaana ballan qaadnaa annaguna ballan qaadaynaa oo aan kor taaganahay habeen iyo maalin inay si nabadgelyo ay ku gaarto noo soo marsiiyay erga goboleedka islaamka OIC raashinkaas oo ay ayaguna sidoo kale qaybinayeen hay'adda Saacid